السلام عليكم. كسو دوادا موضوعنا maanta casharka toddobaad ee Camtasia Studio waxaan kuga hadli doonaa sida aan muuqaal qurux badan u sameyn lahaa iyo sida aan u heli lahaa Camtasia Studio u soo degsan lahaa kadibna muuqaal ugu sameyn lahaa marka muuqaalka sameeyana aan u save gareyn lahaa. intaas iyo mawduucana ku saabsan yahay. ila socda hadaba casharka oo dhameystiran. halkan waa Camtasia Studio, laakiin waa inaan helaa sida aan u soo degsan lahaa oo internetka kala soo degaa. waa inaan kala soo degaa. browserkayga aan soo kicinayaa. browser baan soo kacshay. browserkaasi waxaan ku qorayaa mid ka mid ah website-yada laga helayo waa get into PC. get into PC. waxaad u jeedaa get into PC. markaas ayaan internet computerka gujinaya. waxay soo baxa get into PC website la yiraahdo oo ku soo dhuftay. kadibna waxaan helay Camtasia oo raadinaya Camtasia Studio. kadibna enter baan leeyahay ama go. waxay soo baxday Camtasia noocyo kala duwan leh, midba si u eg tahay. mid alla mid rabaan soo qaadan karaa. tan oo kale haddaan ku dhufto 2019 oo 2 weeks la soo saaray 2019 sanadka la soo dhaafay weeyaan. saamka igu soo baxdo hoos baan u raacayaa waayahay. marka waatan halkaana ka degsanaysaa. halkaas ayaa ku dhufanaysaa. zoomka aad nagu soo dhaweeyay, laakiin waxaad u jeedaa halkan inay tahay meeshii aad kala degi lahayd. markaa ku dhufatid toos buu kugu xirayaa oo muuqaalkaas waxaa la soo degaysaa sad appki daatadii. markaa ku dhufatid kadib waxay kaa qaadanaysaa daqiiqado ay kaa qaadan kadhaa. saasay u socotaa. okay, way socotaa soo ma. kadibna waxaan iska downloadkan iyo continue hadhihin. marka way ii socotaa. waa halkan iga socotaa. marka ii socoto oo ay dhamaato kadib ayaan waxaan sameynayaa sidaan oo kale ayay ii noqonaysaa. double click baan siinayaa. kadibna caadi wuu igu soo furmayaa. marka sidaan oo kaleeto Camtasia ayay ku noqonaysaa. kadib markaa saas samaysid waxaad gujinaysaa import media. markaan araado waxaan soo gashanayaa muuqaalkan sameyn lahaa ayaan soo gashanayaa. muuqaaladan sameyn lahaa ayaan soo gashanayaa. mid baan usoo gashan karaa. dhammaantooda isku qabta baan soo gashan karaa. inta waa la sameyn karaa. haddaan doonayna mar kale soo qaato waxaan isla qabanayaa controlka computerkayga iyo meeshii laftigeedu igu celshay. isna waxaa kasoo qaatay qayb kaleeta kasoo qaatay. okay, mid kaleeta ii noqotay. isna waxaan iri sidoo kaleeto control iyo waxaan soo qaatay mid kale ka mid ah muuqaaladii green screen-ka ahaa. okay, intaas markii igu jidho ayaan midkaan doonayaa inaan soo qaato mid baan usoo qaadanayaa. tan oo kale halkan ii dhig. halkan markaan dhigtay ayaa waxaan soo qaatay masana kan ay ku qoran tahay hordhac. waa dul saartay. okay, labadooda isku la ekaysiiyo. intan dambe iska jarayaa.
labadooda hargaan isla ekaysiiyo qaybtan dambe kan la jaraya gujinaya kadibna waxa adeegsanaya calaamadaas computerkayga s tisan taabanaya xarafka s marka laba cad baa laga dhigay soo jeed cadkan dambe ayaan computerkayga delete san taabanaya del waa iska tira Soomaa marka waxa ii soo haray hordhac yar ayaa ii soo haray oo intaana laakiin waa inuu computerkayga shaashadiisa buuxshaa oo shaashada half inay iga noqoto ma rabo sida darteed kan koraan gujinaya markaan gujiyo waxaan sameeynaa inaan muuqaalkan kala baxsho geesaha qabto oo araada ku sin dhinacaas gee okay waa sugaya intuu ii kala baxayo hadana dhinaca kale aan qabanayaa haleeya ku sin shaashada intay tahay ku sin baan leeyahay halkaan markaan joogo ayaa waxaan gujinayaa mo oo halkaan ku qoran plus taasaan gujinayaa horteeda markaan gujiyay maxaa ii soo baxaya qaybo kala duwan laakiin virtual effect aan ku dhufanayaa kadibna meesha remove background color ay ku qoran tahay oo shaqsigu soo jeedo sawirkiisa soo jiidaya waxa dul keenay meesha cagaarka ahayd ba dul keenay markaan dul keenay property-ga xaggaas ku qoran ayaan ku dhufanayaa calaamada sir cagaarka oo tan u eg horteeda ficta yar ah ayaan furayaa kadibna meesha madow aan ku dhufanayaa kadib meesha laftigeeda ku noqonaya madow markay noqoto qalinkaas ayaan qaadanayaa qalinka ayaan ku dhufanayaa cagaarka dhexdiisa waxay noqotay cagaarka waa meesha laga tirtiray waxa soo baxay muuqaalka shishe okay muuqaal caadi ah sameeynay okay muuqaalada dhammaan ku soo qaadan doona soo kala soo qoraal ugu sameeynayo okay muuqaalka waa ku sameeynay intuu raba hal la ekaado muuqaalkaaga aday gacantaada ku xiran tahay aniga waxa ay sameeysan tahay nus daqiiqad barkeed laakiin adigu dhowr saacadood baa ka dhigi kadhaa barnaamijna waa ku diyaarin kadhaa report oo warbaahin u diyaarinayso u sameyn kadhaa YouTube cashar gelinaysid lesson ardo u soo jeedinaysid anything wax kasta waa ku sameyn kadhaa okay marka waxaan doonayaa inaan save gareeyo cashirkayga ayaan doonayaa si aan u save gareeyo hadaba waxaan ku dhufanayaa halka ay ku qoran tahay search halka ay ku qoran tahay share baan ku dhufanayaa share marka waxa la soo bixinayaa options baa la siinayaa kan ugu koreeyay aan ku dhufanayaa local ah waxa la saaray bookiskan markuu ii soo saaro okay waan iska leeyahay okay markaan raado waxa ii soo baxday kamtashi calaamadii sidaan ahayd ee ii soo baxday fictan yar horeysan horteeda ayaan furay marka waxa ii soo baxday custom ka dhiganaysa ka dhiganaysa ku leeyahay adoo muuqaalada ugu qurux badan HD daas la qaataa oo high definition up to gaaraya aan ka dhigay 1080 taasaan doortay kadibna nagasti waan iri halka markuu joogo waxaan leeyahay magac ula bax waxaan leeyahay lesson 7 baan iri waxa computer desktop si dhexdig kadibna finish baan iri sidaas ayuu igu save gareysmayaa intaas ayaan cashirkeena maanta ku soo koobayaa waad ku mahadsantihiin la socodka casharada taxanaha ee aan kugu tala galnay Ikhlas Academic casharo muhiim ah oo qayb ka ah barnaamijyada soo socda sida Premiere Pro iyo qaybo kale oo xiiso leh kamtaysiyuna haddan ku guda jirnaa haddii muuqaalkan ku xiiso gashay fadlan subscribe tan ugu caawi si uga faa'iidaysano mahadsanidin